arintaas waa arin oo maxaan ku radaa dalka lid ku ah waaye markii la isbalansadaba la arko inay gabdhaha doonaan xaafadaha ay degan yihiin laga doono la soo qabto la xiro rumaan la siiyo bil 2 bilood gabdhahaas ay soo huuriyo maana waxa dhilaaw TikTok hal xiro maalmo ka hor baraha bulshada ku xidhiidha gaar ahaan aalada TikTok waxa lagu arkay gabdha TikTok si laaf ah isku balansanaya waliba meel shaarici isku balansanaya dhaqanka Soomaaliyeed ee dadka Islaamka waa mid gabi ahaanba ka soo horjeedo inkastoo shacabka magaalada Muqdisho ay siyaabo kala gedsan ugu falceliyeen intooda badan waa ka soo horjeedaan oo si carar ay ka hor yimaadeen in gabdho Soomaaliyeed ay isku balansadaan meelaha shaarica waa kuwana qaar kamid ah oo aragtidooda la wadaagay runtii arintaas waa arin foolxun maxaa yeelay meeshaan dawladda ka dhisan haddii dawlad laga soo tago waxaa ka dhisan dawladda hoose ka dhisan sida guddoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmooyinka iyo maxaan ku radaa hay'adaha amniga arintaas waa arin oo maxaan ku radaa dalka lid ku ah waaye maxaa yeelay dalka dawladda ka dhisan dawladda laga rabaa in anshaxaas waxyaabaha oo qaldan ku wadaan inay ka hortagaan oo maxaan ku radaa dadku way og yihiin ama maxaan ku radaa waa la yaqaanaa dadka in la qabto maxaan ku radaa oo xarig lagu la xiro ama la ciqaabo macnaha ma badhacay ku dhiirileen waxa macnaha oo koos gareeyay dayac ka muuqdo dawladda xaggeeda maxay la diiday dawladda ay la leedahay arrimahan arrin ku duwan ama dadka oo system oo diinta ay ku hagaleeday markaas waxa dhic leedahay in dadka inay system wanaagsan ay u gudbaan runtii horto dawladda sideeda macnaha wax way sheegtaa laakiin ma fuliso macnaha waxa dhacday ciidamo anshax la sameeyay haddii dalkan ciidamo anshax loo sameeyay lahaa ama ay ka shaqeynayeen ma dhaceen wax had dhacay ciidamo anshax la seegayo waa ciidamo horta ilaa hadda anaga weli ma arag oo hadda weli ma ku dambaabi karin laakiin ciidan oo hoosh oo gabay waa waxaan leenahay haddii la sameeyay arinta shaqada ay leeyihiin ay qabtaan waajib ay ku tahay shaqeeyaan dhaqankaas gabdhaha maalmo dhow social media lagu arkay iyagoo isdirraaya isbalansaday social media isku balansaday TikTok-ga waa wax maaragtay wixii oo soo galay aaladahan casriga iyo tiknoolajiyadda waaye xaafad waagii hore waa la isku diriri jiray wax la arki jiray way ahayd gabdho isbalansado ama isdirra laakiin de wax baahsan maahayn sidan markaa saameyn xoog leh ayay yeelanaysaa hablaha markaa kala celintooda ciyaal weeradii ayaa hadda la xasiliyey hablaha kala celintooda waa fududahay ciidanka booliska gobolka banaadir iyo ciidanka anshaxa ilaalinaya gobolka banaadir hadda la sameeyey gabdhahaas waa inay soo qabtaan ay la socdaan oo meelahaas la isku balansanayo ay la socdaan TikTok la isku balansanayo markii la isbalansadaba la arko inay gabdhaha doonaan xaafadaha ay degan yihiin laga doono la soo qabto la xiro rumaan la siiyo bil 2 bilood gabdhahaas ay soo huuriyo xaaladaas oo iska xasilaysaa gabdhahaas in la xiro oo xabsiga la tuso markay xabsiga arkaan baqbaqdan iyo boodboodkan way yareynayaan ha arkaan in waddanka sharciga kala dambeyn iyo dawlad ka jirto waalidka horta wax ay ka qaban karaan male naag weynaatay oo xoogsatay oo qaan gaartay oo xooggeedu intaas la eg yahay gabdhahan waa gabdhihii gashaantimaha waa guuru jooggaha waa gabdhihii maaragtay noocaas ah marka haddii waalidkii uu xoog tabar uu ku celiyo ma hayo markaan waxay u baahan tahay waa dawladda ayay u baahan tahay ciidanka iyo booliska waalidka waa ka awood badan yihiin gabdhahan horta taas dhaqankeena iyo midda diinteena iyo midda Soomaalinimada kuma jirto in de waxyaalihii dumarka ka xishoo jireen in de si leef ah hadana oo dadka bulshada dhexdooda ayagoo madaxooda qaawanayay oo jirkooda caadi u muuqato hadana gabdho ay yihiin ay isku balansadaan taas dhaqankeena iyo Soomaalinimada kuma jirto taas waxa dhii lahaay waxa diinta iyo wasaaradda deegaanka iyo guddiga deegaanka iyo waxyaas badan inay gaabiyeen oo waliba si hoos u gaabiyeen fahanti oo taasna waa mid oo maanta laga xumaa karo soo gabdho de meeshii la rabeen inay guriga ku xareysnaadaan oo noloshooda dadkii hortooda public hortooda ka xishoo jiray maanta dadka hortooda inay ka dhigtaan dad oo macnaha isku feeraa isku dagaalan taas waa dhaqan xumo waxaas haddana waa dadka garab ku siinaa rag badan waxa arkay aniga video ka arkay oo markii soo duwaayeen oo garab ku siinaa oo gabdhihii dagaalaa inay kala celiyaan rab taasna waa arxan darro iyo nasiib xumo ay leedahay
ciidankaas ani waxaan dhihi lahaa waxaa loo asaaso una qabteen oo dadka deegaan oo dadka qaar leh mooyaane dadkaas ma laga cabsanaa ma aqaan ciidan madawada ka wata ma aqaan maba loo tago waayadoo la arkay ma arkay every waa dhacday bil ka hore isbuuc ka hore dhacday isbuucaad lagu sii jiraan waxaa ciidankaas waxaa dhihi lahaa ciidankaas wili meesha way gaareen wayna arkaan TikTok qof aan isticmaalin waa yiri telefoon ku jiri waa yiri in waxa la rabaa ayaga way arkeen inay tagaan qofkii meel joogin ma la laasano qof aan ah waay oo meesha jooga la soo karo la soo qaban karaa waxaas hadii loo goodiyo xitaa oo imaan lahaa ma baati qofku wuu isxakameyn lahaa marka ciidankaas way gaabeen hawsha loo idmaday hawlo kale ku mashquulsiinayaan dhinaca waxaan wax dhihi lahaa TikTok ha la xiro waa weelada dhalinyarta ma lino wax kale luma sportska iyo aluma weeli in waxyaalo kale Xuseen Maxamed Abshibaari telefishinka BTN magaalada Muqdisho